بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمر إسماعيل محمد وحنا كان مانتا ربعنا دور قضب إدونا وداعو إن شاء الله سعتان بين مدة واحد كسبنا المجالات البورمة حرونتا قبل كعوضل يجودهان قبل الوقوي حالة كسبينهين وحنا كنا برشة قريبة هذا كل الدول أدينا قطاع بالحدقمات سياسيين أقوياء يوم حنكر هذا برشة قريبة كل الدول أردن وحنا أنت كود هذا النيبل وحنا ماشي كتير ضدكوا أي موديان إن معمول كتيرو ولسه dadku arkaan boqolkiiba 95 waxa nooga soo baxay inaan meesha maamul ka jirin maxaan ku radaa arintu ay tahay un mataqaana in la isku dawladeynayo marka waxaan halkan maanta si gaar ah uga hambaleynayaa Suudaanka guud ee beelaha Gadeebul Sultan Salebaan Ali Ismaaciil oo maanta soo saaray baaq oo u dirayo dhamaan ummadda ku nool gobolada maxaan ku radaa Awdal iyo Salel iyo Geebleyba guud ahaanba taas oo ku sheegayo in maanta la soo ay dhamaatay waqtigii la isku dawladeynayay una sheegay in shirweyne uu cilaamiyay lana qaban doono mataqaana sida ugu dhaqsaha badan leh kaasoo lagaga tashanayo ama dadkan ay ummaddu ay kaga tashanayso mustaqbalka caruurtooda meesha la dhigi lahaa waanan ku barbar taaganahay waanan ugu hambaleynaynaa waxa kale oo halkan rabaa inaan ka hambaleeyo xildhibaanada maxaan ku dhahaa baarlamaanka ee maamulka Hargeysa ku jiray oo mooshinkii la keenay ee ahaa in la ansixiyo heshiiskii saddexda xusbi qaran ee saddexdina ilmaadeerkii ay wateen in la ansixiyo ka dareeray xilmanadaas oo ka soo jeeday gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal waa taariikh cusub weeyi waa markii ugu horeysay ee saddexda gobol ay ka baxaan baarlamaanka maamulka Hargeysa ka baxaan weey waxaan oran karnaa waa bisayl dadku ay u bislaadeen xaaladda jirta ee dhabta ah waxaan oran karnaa waa waqti ay dadku sugayeen in maanta la gaaray waqtigii lagu kala tashan lahaa wax la yiraahdo Somaliland saan la socono waxa lagu aasaasay gobolka Awdal laakiin sidii loogu aasaasay maanta ayay ummaddu waxay dareentay ay ogaatay in khiyaamooyin dadka shacabka reer Awdal lagu goodoomiyay oo loo afduubay xitaa maamulkoodii gobolkoodii wuxuu afduumay maanta cid kale wax horumar oo ka socdaana ma jirto waxaan u korgalay xaaladda guud ee maxaan ku raadayay horumarineed ee arrimo bulsho iyo siyaasadeedba dhinac walba wax ka socdo oo Ilaahay u yahay ma jirto marka waxa leeyahay gobolkan cid u dhalatayba kama shaqeyso saadaladeed horumar iyo waxa iska ilow ma jiro wax ka socda ma jiro wax alla wax kala socda ma jiro siyaasigeedu wuxuu shaqeynayaa mata Muuse Biixi uu yahay mata xamal aqoonyahanka rag lagu tuhmayo in rag aqoon leeyihiin oo jaamacadaha wadanka wax ka dhiga oo ummaddu ay tuhmasay ayaa waxay noqdeen inay basaas u noqdaan Muuse Biixi waxa leenahay shame on you ragaasi oo isgaranayaan ragaasi haddii loo baahdana waa la magac dhabi doonaa laakiin maanta ma magac dhabayo waxaan leeyahay aqoonyahanka reer Awdal ee ku hawlan bulshada sidii ay mataqaanay jar uga sii ridi lahaayeen ummadda ha ka daayaan halaaga ka daayaan ummadooda shacabkooda dhalinyaradooda caruurtooda ha u turaan baa leh ragaas caruurtooda waan leh ha u turaan marka waxaan leeyahay maanta waxa la gaaray waqtigii la tashan lahaa reer Awdal waxaan leeyahay maanta waan soo gaarnay waqtigii la tashan lahaa anoo ku hadlay afka qurba joogta waxaan aad iyo aad u taageerayaa baaqa suldaanka وانا بربر تاغنay waxaan leenahay adeer waxa la gaaray waqtigii la tashan lahaa cid inoo dawladeed soo damba jiri mayso mustaqbalka caruurteena cid kale inuu daba fadhiisano waa xaraan weey aayaha mustaqbalka caruurteena waa in laga taliyo boqolka sano soo socda waa in base-ka loo dhigo ummadda meesha ay ku sugnaan sidii meesha ay mataqaana tagi doonto mustaqbalkeeda Ilaahay baa og laakiin waa in laga shaqeeyo halka ay tagayso waa in laga shaqeeyo weey ragii hawsha ka qaban lahaana way joogaan way nool yihiin aqoonyahankii waa nool yahay yani gobolka Awdal waxa weeyaan waa gobolka aqoonta la yiraahdo aqoontu waa inay noqoto mid ummadda wax u tarta oo ummadaha kale u faa'iideysa laakiin ay noqonin mid guriyaha dadka kale u nuurta inay noqonin baa loo baahan yahay waa inay noqoto mid gudaheeda nuurta horta oo gobolkii ka muuqato aqoontina ka muuqato loo baahan yahay waa inay ka muuqato gobolka aqoonta laakiin haday gobolka kale ka muuqato faa'iido yeelan mayso marka waxaan leeyahay arrintaas aad baan ugu hambaleynayaa waxaan leeyahay shacabka reer Awdal in badan bay afduubnaayeen oo ay u afduubnaayeen cid kale laakiin maanta waxa la gaaray waqtigii laga tashan lahaa arrintaasi waxa kale oo leeyahay maanta wadanka waxa ka taliya wala soconaa cidda maanta wadanka ka talisa wala soconaa waa cid maanta aynu oran karno dalkan way maamushaa ma jirto dawladii hore waxa lagu xaman jiray dumar iyo caruur baa taliya maanta yaa taliya bal maanta cidda talisa inuu isweydiino waa ninka madaxweynaha sheeganaya anu kulli madaxweynaha ma aqaano ninka madaxweynaha sheeganaya ee magacii Ilaahay ee mataqaana al-Halim aha ku mataalay doqonibo ku mataalay weey ninka noocaas ayaa ummadda u talisay ummaddu ha ogaato inaan rajo dambe jirin maanta iyo wax la sii sugaa inaanu jirin
تاهل أوجادو رأي أوضلو يدمانو مدى رئيس سوماليان بوحلي وارتا أوجادا سوماليان أما والله وضيالاني أما والله كلايالاني وحكا لو جرا مجرو عد والله قبل كيدا ويوتشاني عد والبا قبل كيدا عد كلا أضاف فريسان مايسو وانا قوان عد أو أمضاها ورغوي قارين waxa kale oo kan rabaa in ka hambaleeyo jabhadda dulmidiid ee uu hogaamiyo Colonel Carre waxaan leeyahay aan waxa kamid ah ragii jabhadda asaaskeeda lahaaba kamid ah waana ku hambaleynayaa hawsha ay qabteen iyo mataqaana xaqa iyo xuquuqda ay raadinayaan waa xuquuq ka maqan ummadda reer Soomaaliya oo ka maqan weey waxaan leeyahay go'aankiinu ha ahaado go'aankii ka soo baxay gacan libaax ee ahaa Somaliland hala wada yeesho inuu noqdo ajendaha lagula heshiinayo ama kula heshiinaysa musabixi waa in Soomaaliland la wada yeesho weey hadii la wada yeelan waayo waa la kala yeelanaya nin walba caruurtiisa iyo gobolkiisa uu tashanaya tashada gobolkiina uu tashada aad baan ugu hambaleynayaa hawsha fiican ay qabteen guntii iyo gabagabadii waxa leh reer awdalow maanta waxa la gaaray waqtigii aynu ka tashan lahayn waxa aynu arkayno dhan waxa dhacaya duufaanada dhacayna waqtigii laga tashan lahaa baa la gaaray waana waqti fiican weeyi marka cid u yeedhinaysa ma jirto inagoo soo taagan in wax layna marsado ma dhici doonto marinaya Muuse maanta waxaashku kula kulmay dawladda Soomaaliya rag baa u xidhan Soomaaliyaad taageertay Soomaaliyaad la hadashay Soomaaliyaad tagtay wasiir Soomaaliya salaantay baa dad u xidhan yihiin caldoon baa kamida dadka u xidhan Soomaaliyaad ma taqaanayaad taageertay ama Soomaaliyaad ka hadashay ama Soomaaliyaad u heestay ama wad hambaliyeysay madaxweynaha hambaliyeysay wuxuu dhigay marka waxa leeyahay maanta wuxuu kula kulmay xashka wasiiradii dawladda Soomaaliyeed faladaba isaga yaa xukuumaya waa kane marka waxa leeyahay reeyawdalow halkaas aynu maraynaa mustaqbalkeena inaan cid kale ku xidhin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland la sheegayo oo la leeyahay waa la gelayaa ayaa gelaya waa la isweydiiyay way reeyawdalow aynu ka tashanaa ayaheena mustaqbalkeena aynu ka tashano intaasaan reeyawdal ugu soo gabaxan leeyahay maanta waxa la joogaa waqtiga aynu tashan lahayn cid dambe aynu sugno oo aynu ma taqaana wax ka sugno 30 sano yaa laga hadlayay waxa la saamay qaybsi mana soo socdo dhicina maayo saamay qaybsi dhabo ka dhacayo Somaliland ma jiri doono baan leeyahay anigu waa fikirkan aaminsanahay weeyi waxa kale oo ka rabaa inaan ka hambaleeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan sheegay in dadka reer waqooyigu ay afduuban yihiin waa runtii waa xaqiiq weey waxyaabaha aan gobolka Awdal intaan joogay iyo gobolada kale aan kala kulmo wax kamid aha dadku inay afduuban yihiin dadku waxay u afduuban yihiin maamulka meesha jooga laakiin boqolkiiba 95 waxay diyaar u yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed hadii la waayo Somaliland la wada leeyahay cid maanta danaynaysa inay u shaqayso maamul tirib leeyahay ma jirto ma dhacso marka aad baan u hambaleynayaa ra'iisul wasaaraha oo markii ugu horeysay arinta ka hadlay walow ay jiraan rag badan oo arintaasi ma taqaan dhaliilay oo maamulka ka soo jeeda ma taqaan xaafadland waxaan leeyahay waqtigii uu dhamaaday isku dawladeynayay ummaddu way kala tashan ama way isku tashani wax ka dhaxeeya ma jiri doono guntii iyo gabagabadii waxaan leeyahay shacabka reer Awdal maanta ayaa la gaaray waqtiga la tashan lahaa hala taageero waxaan ku raahday hadalka suldaanka hala lagu baraarugo hana laga wada qayb qaato anu haddaan qurbo joogta matalayo waan taageersanahay waana barbar taaganahay waxaan ku soo gabagabinayaa kalaata tixdeeda gabaygan oo tiriyay abwaan weersame oo oranaysa mar bay warmoogay ummadayda mahsani miiraami doontaa maalin aan fogeyn baa irbadaha ku mudanay miirkooda doorshe falka loo maleegiyo sixirada muqlooyiyo minka ina gumeedka ah laga meerin doonaa maalin aan fogeyn baa iyadoo muduciyo muruq iyo awood lehi ragga mowraduuge marshay xoolaheedii u midoobi doontaa